عول مid ka mid ah musharaxiinta Soomaalida ah oo isagu nin dhalinyaro Soomaali aqoon-yahana aan filayo inuu meel badan wax ka soo qabtay bal caawa isaga ayaa iskeen bari doona inta aan anigu wax badan ka faahfaahin waa Maxamed Cabdirasaaq Maxamed Abuukar oo isagu booqasho ku yimi magaalada Minneapolis habeen dhaweydna munaasabad lagu taageerayo loogu qabtay Double Tree Hotel oo ku yaala xaafadda Salwisback Maxamed Cabdirasaaq ku soo dhawow barnaamijka caawa iyo cawl iyo TV-ga Somali Cable ما تنتهي واتهي محمد انت aniga aqoontayda waxaan ogahay inaad tahay asaasihii ama agaasimaha adda Somali One inta anigu aan ka garanayo marka laga soo tago bal waxa aan doonayaa dadka Soomaalida ay musharaxa u tahay aad rabto inaad hogaamiso bal in yaro kooban oo taariikhdaada inaad soo gudbiso عاول marka waa mahadsantahay sidoo kale waxaan jeclahay aniguna inaan ummadda muslimiinta aan u gudbiyo hambaliye ku saabsan bishaan ramadaanka barakaysan ilaahay anaga aqbalo cibaadadan intaas daan ka gudbo Somali One waa hay'ad aan asaasay 2 sano ka hor kadib markii aan ka tagay hay'adii aan madaxda ka ahaa oo la oranayay National Democratic Institute oo aan ka ahaa wax loo yaqaan country director ama chief of party hay'adaas shaqadeeda waxaan waday muddo 4 sano ku dhawaad waxayna u badnayd shaqadeeda tababarka baarlamaanka inaan kala shaqeyno arrimaha dejinta shuruucda tayintooda inaan maaragtay geyno wadamo kale iyo baarlamaano kale oo shaqeynaya si ay khibradahaas isu weydaarsadaan la shaqeynta xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo xafiiska madaxweynaha iyo wasaaradaha markaas marba hawsheena ay ku aadaneen ka hortaas waxaan ka shaqeynayay xafiiska siyaasadda UN-ka oo aan la shaqeeyay ninkii la oran jiray Wald Abdallah shaqada intaan wadnayna waxaa ka mid ah waxyaalihii aanu ka shaqeynay shirkii Djibouti ay ku wada hadlayeen dowladii ku meel gaarka ahayd iyo ARS ama isbahaysiga dib u xareynta Soomaaliya markaas ka hor waxaan la shaqeeyay Allah naxariistay madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf oo aan noqday agaasimihii u noqday agaasimihii madaxtooyada wax loo yaqaan chief of staff muddo hal sano ah halkaasaan maaragtay kasii bixi karaa waa tahay hawlo dheer baa soo qabatay Maxamed goorma